assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi. digniinaha aad maqlayseen waxay ahaayeen digniinaha dadka rayidka looga digo xilliga ay soo socdaan duqeymo dhanka cirka ka imanaya. barnaamijkeennan diblomaasi ayaynu maanta gebi ahaantiisba ku eegaynaa suurtagalnimada in dowladda shiinuhu weerar ku qaado jasiiradda taiwan ay isu haysata inay tahay dowlad ka madax bannaan dhulweynaha shiinaha, iyadoo taasu ahayd hadalhayntii ugu badnayd tan iyo markii ciidamada ruushku ay gudaha u galeen dalka yukrain. dadyow badan ay ugu horreeyaan kuwa reer galbeedkana waxay istusayaan in dowladda shiinuhunu ku dayato tallaabada ruushku qaaday gudahana ay u gasho jasiiradda muddada dheer ay ku taamaysay inay gebi ahaanteedba ku soo darto dhulweynaha shiinaha. fadlan daawada sii sheergaray barnaamijka, hana ilaawin laygta. barnaamijkan ayaynu ku samaynaynaa codsiyo ka yimi qayb idinka mid ay ugu horreeyaan qanciya shuu iyo ninka kale lagu magacaabo shafka from hiiraan. had iyo gooraalena waxaa naga go-an inaannu daawadayaashayada qancinno, muuqaalana uga samayno hadba markaa wixii ay danaynayaan. ku soo dhowaada barnaamijka. 5 maalmood ka hor dowladda taiwan waxay soo rogtay amar iyo tababar isku jira. waxay ku amartay dadweynaha ku dhaqan magaalada taipei oo ah magaalada ugu weyn jasiiraddaas in ay maqli doonaan digniintaasuna ay tahay duulimaad shiinuhu ku soo qaadaan jasiiradda iyagoo duqeynaya magaalada taipei. waxayna dadweynaha ku amreen marka ay maqlaan dhawaaqa digniinta inay gebi ahaantoodba u yaacaan meelaha nabadgelyada ee dhulka hoostiisa ee lagaga dhunto duqeymaha kala duwan ee cirka ka imanaya. waxaana ay maamulka taiwaaniyiintu ku diyaariyeen telefoonada dadku ay sitaan barnaamij tilmaamayo goobta ugu dhow qof kasta ee uu gabaad ka dhigan karo. waxaase taa la socotay digniin ah qofkii lagu arko wixii xilligaa ka dambeeyay isagoo dibadda maraya in la ganaaxi doono lacag u dhiganta $5,000. tan ayaa ahayd mid loogu diyaar garaynayo dadka magaaladaas xilliga dowladda shiinuhu ay soo weerarto sidii ay u dhuuman lahaayeen. tanuna waxay timid kadib markii taiwaaniyiintu ay nafsadooda uga baqeen shiinayska oo soo weerara. sanadkan gudihiisa 400 oo ka mid a diyaaradaha dagaalka dhulweynaha shiinaha ayaa iyagu jawi hoose ku soconaya dul maray gebi ahaanba jasiiradda taiwan. jasiiradda taiwan ayaa iyadu isu haysata dowlad ka madax bannaan shiinaha, balse arrinku sidaa ma aha markii la raaco diblomaasiyadda. habka iyo habraaca diblomaasiyadda ayaa waxa uu sheegayaa sababaha dowlad lagu aqoonsan karo inay yihiin kuwo cad, kuwaasoo intooda badan aana jasiiraddaasu buuxin. waxaana taiwan loo aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah dhulweynaha shiinaha. wasaaradda gaashaandhigga ee taiwaaniyiintu dhowaantan waxay daabacday buug kaasoo ay dadka ugu qaybisay si safmar ah. waxaana buugga ku qoran macluumaadka laga doonayo xilliga shiinaysku ay jasiiraddaas soo weeraraan iyo wax kastoo la gudboon oo laga doonayo qofka muwaadinka ah. dowladda shiinaha ayaa indhawaaleba waxay samaynaysay dhoolatusyo kala duwan, kuwaasoo si cad oo bareera u muujinaya in qorshahoodu uu yahay siday ku qaban lahaayeen jasiiradda. waxaana dowladda shiinuhu ciidamadooda u tababarayaan gaar ahaan kuwa badda qaabka jasiiradaha loo qabto. waa qaabka dagaalka la yidhaahdo amfibioska oo ciidamada inta maraakiib lagu guro loo dhoweeyo xeebaha lana doonayo iyagoo hubkooda wata in ay gaaraan xeebtaa kana dagaalamaan. xiriirka shiinaha iyo u dhexeeya jasiiraddan ka tirsan ayaa waxa uu xumaaday 2020 markii dib loo doortay haweeneyda haatan jasiiradda madaxweynaha ka ah, oo iyadu ah naag u go'day dhanka reer galbeedka, nacay fara badanna u qabta dadka ay ka dhalatay shiinayska ah. madaxweyne richard nixonkii dalka maraykanka ayaa 70-meeyadii gebi ahaanba xiriirka u jaray jasiiraddii taiwan. waxaana xilligaa wixii ka dambeeyay adduunku aqoonsaday dowladda shiinaha aynu maanta naqaan. xilligaasna waxa uu madaxweynaha maraykanku caddeeyey in ay jirto hal dowlad oo shiina la yidhaahdo lagana maamulo beijing. xilli dambena madaxweyne jimmy carter waxa uu wanaajiyey heshiiskii kala dhexeeyay dowladda shiinaha isagoo gebi ahaanba xiriirka u jaray jasiiradda taiwan, balse waxa uu sameeyey qoraal ah in jasiiradda maraykanku ka caawini doono weligeed qaabkii ay qudheedu isu difaaci lahayd. waxaase arrinta xumeeyey madaxweyne Biden ka hadda talada dalka Mareykanka haya
oo dhowaanta sheegay in haddii shiinuhu uu weeraro jasiiradda taiwan ay dagaalka kusoo biirayaan. wax yar dabadeedna waxaa hadashay haweeney u hadashay aqalka cad oo sheegtay madaxweynaha hadalkiisu inaanu waxba ka bedelin siyaasaddii maraykanka ee ahayd inay halkaa jirto hal shiina oo keliya, dowladda la aqoonsan yahayna ay tahay tan fadhida magaalada beijing, wixii ka soo harana ay yihiin dhul ay iyadu u taliso. khilaafka ugu weyn ee dowladaha shiinaha iyo maraykanka u dhexeeya ayaa waxa uu yahay hubka aan kala joogsiga lahayn ee dowladda maraykanku ka iibiso jasiiradda, iyagoo weliba og in ay taasu baalmarsan tahay diblomaasiyadda. jasiiradda taiwanna aanay ahayn dowlad madax bannaan, sidaa darteedna aan laga iibin karin gebi ahaanba wax huba, marka laga reebo qoryaha yaryar ee fudud iyo bastoolado haddiiba ay soo codsadaan si ay u sugaan amnigooda gudaha, booliskoodana ay siiyaan. balse dowladda maraykanka ayaa jasiiraddaas u hubaysa si la mida dowladaha adduunka, marka laga reebo in ay dhibaan hubka ay ka gadayaan tabarta uu leeyahay inuu weerar qaado. had iyo jeerna waxay ka iibiyaan hubkaas oo loogu talagalay dhinaca difaaca, balse ay yeereeyeen awooddiisa ah inay weerar ku qaadi karaan. dhowaantan ayay taiwan iyo maraykanku kala saxiixdeen heshiis ku kacaya $750 milyan, kaasoo jasiiradda taiwan maraykanku kaga iibinayo maraakiib kuwa dagaalka ah. maraakiibtan ayay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanku in ay yihiin kuwo aan awood u lahayn inay weerar qaadaan, balse jasiiradda yar ay xuquuq u leedahay inay iska difaacdo weerar kaga yimaada shiinaha. iyadoo marka aynu ka hadlayno diblomaasiyadda arrintani ay tahay mid cad oo muuqata, taiwanna ay tahay qayb ka mid a dalka shiinaha, ayay haddana reer galbeedka maraykanku hogaamiyaa si daandaasi ah faraha ugula jiraan arrimaha gudaha shiinayska. ma jirto dowlad xuquuq u leh inay gobol ka mid a dalka maraykanka hub ka iibiso sidii dowladdiina ula dhaqanto. haddana dowladda shiinaha waxay ku sameeyaan dowladaha reer galbeedkaa sidaa. inkastoo aanay taiwan u aqoonsanin inay tahay dowlad, haddana waxay ula dhaqmaan sidii dowladdii oo kale, iyagoo u oggolaaday inay waddamadooda xafiisya ka furtaan, sidoo kalena uu kala dhaxayo ganacsigaasoo dhaqaalaha iyo cashuur bixinteeda ay qaadato maamulka jasiiradda taiwan, waxna aanay ka soo gaarin gebi ahaanba dhaqaalahaas dowladda ay taiwan ka tirsan tahay shiinaha. ugu dambeynna in dhowaalaba waxaa la saadaalinayay inaan wixii haatan ka dambeeya dowladda shiinuhu arrintaa u dulqaadan doonin. inkastoo madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping uu sheegay inuu doonayo taiwan inay ku soo noqoto qaab nabadgelyo ah, haddana siday arrintu u muuqato maaha mid ka fursanaysa in ciidamada shiinayska ay halkaa galaan. cadow dibadda kaasoo weerarana daawadayaal waxaa ka daran qayb dadkaaga ka mid a oo nacayb saayida kuu qaada, kuuna soo raacda oo soo dabagasha cadowgaagii soo jireenka ahaa, waxayna gebi ahaanba noqonayaan dadka taiwan ku nooli kuwa khaayimiina oo khiyaamay dadka ay yihiin shiinayska ah.